labada suuradood iyaguna waxa ay ka waramayaan ay ku soo degeen nabiga oo saxay calayhi salaatu wasalaam ayaa la ka deeyro marka rasuulkuna markii uu akhriyay sallallahu alayhi wasallam ilaahay ku caafimaadiyay bismillaahir rahmaanir rahiim qul waxa tiraada nabi maxamedow a'uudu bi rabbil falaq ya ilaaha waaga bariya ayaan magan galay min sharri ma khalaq waxa la wuxuu abuuray sharkiisan ka magan galay wa min sharri ghaasiqin idha waqab wa min sharri ghaasiqin mid habeen mid dhaxkala ayaan ka magan galay idha waqaba habeenku markuu madoobaado habeenku markuu dam yiraahdo waxa la waxa soo dhaxkala baan ka magan galay ama wa min sharri ghaasiqin idha waqaba habeenku kulka uu madoobaado wa min sharri nafaasat kuwa ku tuftufaya fil uqadi kuntimaha inta sixirka isku guntaan kuwa ku tuftufaya waana ilaahay baan ka magan galay wa min sharri hasidin idha hasada ka waxa sidii sharkiisana ilaahay baan ka magan galay intaaba ilaahay ka magan galay ayaan deyrtayoon magan galay ملك الناس خلق قرن استجوا إسكاله إله الناس ضدك إله واه يجوا عابديان أين عابدان أي تاي من شر الوسواس كلا ضادية ضدك اللابتو ده يخربية الخناس إسقرية أيان كم جنجلا الذي كاسو يوسوس حمينية في صدور الناس ضدك اللابه كاسو من الجنة والناس جني إنسلاله ساسو طبعا وما جنجلا النبي عليه الصلاة والسلام يهودية أياس الحي oo nin yaro shaqeynay nabiga intuu dirtay buu timihiisa ay soo qaad iyo firinkiisa sidii buu sirxay muddo dareemayay nabigu in wax ka siihiin markii dambe malaga loo soo diray ee labadan suuradood oo akhriyayna iyadoo xarka iga furmayaan baad moodaysay uu leeyahay oo caafimaad rasuulku sallallahu alayhi wasallam caadigiisina wuu noqday markii dambena wuxuu caadaysan jiray in uu akhriyo labadan suuradood gacmihiisa ku akhriyo jirka inta uu gaaro ayuu habeenkii wada marin jiray waana fiican tahay runtii waxa siyaabaha uu qofku ku deeranayay kamid tahay ee ilaahay uga magan galay shayaatiinta iyo sixroolayaasha oo runtii akhiran malaha ee soo kordhayo iska badan waa laba suuradood ka dawadaawi marka falaquna waa waaga qaasiquna waa ka dhaxgalay ila waqaba habeenku markuu madoobaado wax badan ay maaragtay soo dhaxgalaan النفاثات وكوا وحتفتفي عقدكنا وكنتمها حسدك لفتي سنة وحادي هذا خطر بدن قفك حاسدك وحكى لما قنعيان أنا أهين عدو حاسده يو نعمده كتكتو تاسو با قنعين كرايس marka sifooyinka ilaahay rabbi buu dadka u yahay abuuray maalik buu yahay isaga iskale macbuud buu yahay inay caabudaan bayt qaraadu abuuray oo iska leeyay ala waswaas waa ka qofka laabtiisa saa intuu wuxuu mariyo wuxuu soo haraaciyaa yani qofkii aanu caadi noqonayn uu kala wareegayaba